wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali, wasiir ku-xigeenka wasaaradda Ibraahim Cabdi Xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Khaliif Maxamed ayaa kulan bilaah la qaatay dhammaan howlwadeennada wasaaradda. kulankan oo bishii mar u qabsooma wasaaradda ayaa waxaa diiradda lagu saarayay wixii u qabsoomay iyo waxa aan u qabsoomin wasaaradda, sidoo kale qorshayaasha u degan, waxaana warbixino laga dhageystay qaar ka mid ah howlwadeennadii ka soo qayb galay shirka. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali oo markii uu soo idlaaday kulanka la hadlay warbaahinta Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka iyo waxa uu daaranaa. shirkeena maanta wuxuu ku saabsanaa sidii loo kala warqaadan lahaa howlwadeennadii shaqaalaha wasaaradda iyo shaqooyinkii socday iyo sidii loo dardargelin lahaa. runaantii saa la socotaan waxaa socday maalmihii lasoo dhaafay ama bilihii lasoo dhaafay xanuuno xoolaha isbedel fiican baa muuqdo oo shaqaalaha wasaaradda iyo wasaaradda guud ahaanba waxa weeye waa isbedel weyn bay ka sameysay iyo dadaalo badan. sidoo kalena maadaama yani aan rabno wasaaradda howlaheedii in la dardargeliyo inuu shaqaalihii wasaaradda iyo isbedelo lagu sameeyo, iyo dhanka kalena in shaqaalihii tababarada loo diray iyo waxyaabaha ay aqoon kororsiga ay soo heleen sidii ay ula wadaagi lahaayeen shaqaalaha kale. shirkan si kastaba ama mar kasta waxaa la qabtaa bishiiba hal mar oo run ahaantiiba lagu kala warqaato. waxaa kaloo jiro shirar oo isbuuclo ah oo runtii shaqaalaha wasaaraddu ay yeeshaan howlqabadkii iyo qorshayaashii dowladda ama wasaaraddu ay lahayd lagu soo bandhigo. marka run ahaantii waxaan ku dhiirigelinaynaa shaqaalaha inay shaqadooda qabsadaan, inay waajibaadkooda guddaan, iyo sidii howlahan yani ummadda Soomaaliyeed loo hayo gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka la xiriira waxyaabaha la xiriira dhaqashada xoolaha sidii loo yani dowladda xoog weyn ugu geysan lahayd. saa la socotaan dadka ugu badan oo Soomaaliyeed maanta IDPs ka ku jira ama ku jiro goobahan barakacayaasha waa dad xoolihii ka soo dhamaadeen. taasna waxaan iska warsanay qaabkii ay dadka shaqo abuur loogu heli lahaa maadaama ay yihiin taariikh ahaan ama background-kooda uu yahay xoolo dhaqato, sidii xoolahaas ay ugu faa'iideysan lahaayeen. wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay hilibka iyo caanaha ay dadka isticmaalaan maadaama dadka Soomaaliyeed ay dhahaan waxay ku noolaayeen ama horeba ugu noolaayeen dhihi jireen cadi caano. wasaaraddan intaas ayada ka mas'uula sidii caafimaadkooda loo ilaalin lahaa, fayadhowrkooda loo ilaalin lahaa, iyo dadkii qaabkay ugu faa'iideysan lahaayeen. sidoo kale dadka xoolo dhaqatada ah oo abaarahan soo noqnoqday dadka Soomaaliyeed inay noqdaan dad xoolo dhaqato ah aan kaliya noqon xoolo raacato oo xoolo raacayo, sidii aqoontooda iyo karaankooda kor loo qaadi lahaa. waxaan isku weydiinaynay marka wasaaraddu runtii waana shirar socon doona oo markasta bishiiba hal mar dhaco si guul ah ayuuna kusoo gabagaboobay. aad baad u mahadsantihiin.